بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada casharkeennii noo socday xirfadda xulashada lamaanaha waxaan soo baranaynay qeybaheennii dhexe ee xulashada ku saabsanay iyo su'aalihii la isweydiinayay iyo weliba waxaanu dul istaagnay inaad isu diyaariso nolol cusub isu diyaarintii nolosha cusbay ayaan weli ku jirnaa markaad qoys bilaabaysid ama aad xulasho samaynaysid waxaa ka dhalanaya howlo waaweyn howlahaas waaweyn waxaa ka mid ah in aad mas'uulnimo bilaabaysid haddaad hooyo tahayna waxaad noqotay mas'uul weyn haddaad aabba noqotana waxaad noqotay mas'uul weyn oo family ama qoys hambalyo taas waxay kuu keenaysaa in aad garan karto waxyaabaha aad mas'uulka ka noqonayso guurku sidiisaba waa udub dhexaadka ay ka bilaabato mas'uuliyadda sayada responsibility qofku markuu qaadana Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad waxay kaloo yiraahdaan nin lagu seexdo haseexan oo macnaheedu tahay dad ba adiga kugu hurdi doona oo adiga kugu tashanaya therefore marka adiga lagu tashanayo oo lagu xisaabtamayo in aad adigu booski iyo mas'uuliyadaas aad leedahay dadka adiga aad mas'uul ka tahay adiga kugu tashanayaan therefore ma hurdi kartid adiga waa inaad kacdaa oo aad qabsataa mas'uuliyaadkaaga iyo hawlaha muhiimka ah ee qoyskaagu kaaga baahan yahay si qoyskaagii uu u helo daryeelkii iyo go'aan iyo hogaamintii adiga aad ku lahayd haddaad hooyo tahay iyo haddii aad aabba tahay xulashadu marka waxay keenaysaa markaad wax xulato inaad hesho mas'uuliyad inaad dareento mas'uuliyadka marka maxay yihiin qofku markuu sida mas'uul guur galo mas'uuliyad baa fuulaya oo xagga nolosha ah oo xagga deegaanka la degaya ah oo xagga baahiyaha la xiriira gogosha ah oo baahiyaha la xiriira dhinaca buuxinta xagga dhaqaalaha ah xagga caadifada ah xagga jacaylka ah iyo dhammaan bixinta waqti dheeraad ah iyo mid hogaamineed labadaba dhammaan qodobadaas aan sheegay oo dhan mas'uuliyadkii laba dhinac fuulaya weeye hooyadana mas'uuliyad culus baa fuulaya odagana mas'uuliyad ama aabahana mas'uuliyad culus baa fuulaya daa kasta ha jooga that's why mar walba aan u yiraahdo qofka waa in uu isdiyaariyaa waa inuu ogyahay ciduu guursanayo waa ciduu xulanayo waa inuu qaangaaraa waa in garaadkiisu dhismaa ma garanaysaa waa inuu xoogeystaa marka waxaad u diyaargaroobaysaa kala duwanaana waa u diyaargaroobaysaa mas'uuliyadna waa u diyaargaroobaysaa tan marka waa mas'uuliyaadkii sidoo kale kala duwanaan u diyaargaroobo waan ka soo hadlayo kala duwanaantu waxay imaanaysaa in aad fahamtid adigii gabadha inaad wax badan ku kala duwan tihiin gabadhana waa inay fahamto iyadii saaxiibkeeda cusub inay wax badan ku kala duwan yihiin oo isku guri ku soo korin oo isku waalid uu soo dhalin oo isku jaamacadda ka soo bixin ama isku deegaanba ahayn ama isku dhaqanba ahayn laba gobol oo Soomaali kala yimaadeen waa inay fahamtaa in habka nololeedka ay u soo kortay iyo nolosha wiilka ku soo koray ama gabadha ku soo kortay inay ka duwan tahay teedii inay jirahaan iyo jinsi ahaanba kala duwan yihiin oo baahi isu keentay iyo jacayl iyo nolol inay wadaagaan taasina ay keenayso in la aqbalo kala duwanaanshaha xagga fikirka xagga hadalka iyo xagga garaadka intaba sidaa darteed waa in qofku aqbalaa kala duwanaan marka hore waxaan sheegnay inuu mas'uuliyadiisa qaato kala duwanaanna waa inuu aqbalaa markaad kala duwanaanta aqbashid waxaad ogaanaysaa in kala duwanaantu ay tahay dhadhanka nolosha sababtoo ah haddaa adiga gabadha isku mid tihiin guriga isugu taabteen haddaa isku mid tihiin isma jeclaateen ma garanaysaa kala duwanaantu marka dhadhanka waa haddaa isku fikir tihiin ismiidna qancisaan dadku inay kala fikir duwan yihiin kala midab duwan yihiin kala jinsi duwan yihiin dhadhanka nolosha iyo macaanka nolosha ayaa ku jirta marka kala duwanaanshahaas waa in la aqbalaa oo haddii fikir gabadha aragto aadan la yaabin oo haddii fikir qalloocada aadan la yaabin waxaa kaloo isu diyaarinaysaa xiriir cusub oo qoys mas'uuliyadii iyo kala duwanaantii waxaa saddexeeya xiriir cusub oo qoys baa abuurmaaya labada qof markay isguursadaan ama ay xiriirkii xulashadii soo dhammaystaan waxaa abuurmaaya xiriir cusub oo iyaga xiriirkooda kasii dhalanaya oo muxuu yahay waa labadii qoys ee labada qof ee isxulanaya ay ka yimaadeen ee wiilka qoyskiisa ahaa iyo gabadha qoyskiisa ahaa waxaana ka dhasha markay heshiiyaan oo labada qoys isu yimaadaan
waxa la yiraahdaa xidid baa ka dhasha xidid waa la yiraahdaa reerkaas hebel wuu la xididay hebel buu la xididay ama reer gabdhaas reerkeedii waa la xididay macnaha qaraabaa la noqday wey ereyga marka xidid macna weyn ayuu xambaarsan yahay marka si caada u eegnana wuxuu noqonayaa laba midkood xididka geedka ka baxa iyo xididka dadka ka baxa ayaba dhaweyto dhan meediyaha gaar ahaan gobolada qaarkood waqooyi waxaan arkay iyadoo aad looga hadlayo qoyska gaar ahaan sodohda wax badan ayaa halkaas kaaga baxaya dhalinta maanta iyo u fakaraya iyo dhalintii hore iyo u fakari jireen xididku sidiisaba waa nolosha qofka markaan si caadi ah ereyga u cabirno xidid laba shay buu noqdaa wuxuu noqdaa xididkan qofka ku jira ee jirkiisa waraabiya ee biyuhu mara iyo xididka geedka uu ku taagan yahay ee dhulka uu ku muto ee uu ku taagan yahay waxaan rabnaa bal si mandiq caqli ah yaan u baaraynaa xidid wuxuu yahay si aan ula soo baxno macnawiyaadka ku jira xididka haddaan ku horumarno xididka geedka ee dhulka ku haya siisaba geedka markuu baxo dhulka waxaa ku haya oo suurageli dhulka inuu ka tagna waa xididka oo geedku markuu baxayo xididka dhulka ayuu gashadaa kaas oo suuragal u dhiga inuu dhulka hoos u galo macdanta iyo biyaha u soo nuugo dhulka hoostiisa ku jirta geedkuna uu ku bixiyo maxaan ku yiraahdaa caleenta kore sidoo kale haddaan xididku dhulka ku jirinin geedka dabaysha iyo dhammaan dabeecadda uu ku nool yahay ayaan ridi lahayd oo suuragal ma noqdeen inuu sii taagnaado qofkii raba marka geedka inuu dumiyo geedka waaweyn oo maanta taagan raba inuu baxo intuu faas qaato miyuu maanta oo dhan jaraya waqti dheer bay ku qaadanaysaa laakiin hadduu rabo si fudud inuu dumiyo intuu hoosta ka qodo ayuu xididada ka jaraa ama wuxuu ku shubaa oomo iyo waxa loo yaqaano bahashan aashitada ah ayaa lagu shubaa geedkii marka ayadoo energy kaaga bixin ayuu dhacayaa oo si fudud ayuu u dumayaa marka taas waxaad ogaanaysaa geedka meesha laga dilo ama uu ka nool yahay waa xididka oo dhulka kuula jiro ee siiya macdanta haddaad qashin ku shubto iyo amaha ku shubtana wuu dumayaa xididka dadka ku jira haddaan u soo noqonno bini'aadanku wuxuu ka kooban yahay jir iyo hilib iyo lafo murqo iyo xidid dhammaan jirka waxaa isku xira oo waraabiya waa xididada bini'aadanka haddii xididada bini'aadanka mid ka mida la jaro qofku wuu dhiig baxaya wuuna dhimanaya marka macnaha xidid ku jira waxa weeye geedihiina xidid baa haya qofkana xidid ku jira waxa uu ku nool waa xidid sidaa darteed adiga gabadhan wada nool oo maanta isku keenay waxa u dhaxeeya waa xididkaas waaye markii macnaha loo fiiriyo waa xidideen way dhiig baa idinka dhaxeeya dhacaan baa idinka dhaxeeya dhalashaa idin dhex martay sababtu waxaa weeye cunugmaha kuu dhasha wuxuu yeelanayaa sodo wuxuu yeelanayaa seedi wuxuu yeelanayaa abti wuxuu yeelanayaa habaryar wuxuu yeelanayaa eedo laba dhinac xididkii baa isu gudbaya dhiiggaagii iyo dhiiggii gabadha wixii ka dhex dhashay ayaa waxay kala aadayaan labada dhinac ee qoyskii gabadha hooyadeed iyo aabbaheed adiga hooyada iyo aabbaha bay noqonayaan wiilka aabbihii iyo hooyadiina gabadha hooyada iyo aabbaheed bay noqonayaan salaad kama jebiyaan shariicada islaamka waa inaa marka saa u fahamtay xididka qiimihiisa sidaa darteed xididka waxyaabaha dumiya ama halleeya sida aan soo baranay geedka haddaad qashin ku shubto ama aashta ku shubto wuu dumayaa ereyga xun iyo cayda iyo aflagaadada iyo xurmadarrida ayaa u dhiganta oomadii iyo aashtadii geedkii lagu shooyey inta aad adigu nooshahay xididkaaga carabkaaga iyo hadalkaaga xun ka ilaali sababtu waxaa weeye waa qoyskii aad ka dhalatay oo kale waa hooyada iyo aabbahaa oo kale sodohda iyo sodoguna kaba sii daran gabadha aabbaheed iyo hoodeed weeye ilmahaaga gabadha walaalkeed abtibu u yahay gabadha wiilkay dhasho wiilka walaalkii adeer buu u yahay saasaa la isu dhexgelayaa xidid baa la noqday waa la iswaraabinayaa dhalashadii baa dhex maraysa dhecaankii baa dadka dhexaynaya dhalashaa imaanaysa marka waa in la ilaaliyaa xididka oo la fahmaa qiimaha uu leeyahay haddii xididka uu xumaan kaa dhex galana dhibaato weyn baa imanaysa xididka marka waa in la dhowraa waxa u baahan yahay in la ilaaliyo xidid lama gooyo lama ixtiraam xumeeyo lama xasdo
garanaysa waa la dhowraa intaad dhowri kartid xidid waa inaad dhowrtaa xididka adigu wiilku leeyahay ama sodo ha noqon ama hooyo ha noqon ama oday ha noqon waa in la ilaaliyaa haddii marka xidid ee xun eebba kugu abuuray qoyskii gabadha kugu xumaaday ama wiilkii qoyska kugu xumaaday way dhici kartaa bilaadanku wax xumaan kara waa nasiib ilaahay baa kugu abuuray adigu mar walba isdhowr is ilaali laakiin haddii ay ku wanaagsan yihiin wanaagso hagaagso wax walba ku samayso hadday ku xumaadaan xataa adigu wanaaji intaad kari karta wax wanaaji laakiin marna erey xun iyo ficil xun midna ha samayn insha allahu tacaala xididkana waxaan baran doonaa sida xididka loo dhowrana waan baran doonaa oo mawduucani waxaa ku xigi doona sidee loo wanaajiyaa xiriirka xididkaaga ayaan baran doonaa insha allah